iyada oo uu adduunka hadheeyey mugdiga daran ee dulmiga, boobka, dhaca iyo duudsiinta xuquuqda aadanaha ayaa uu Ilaahay soo igmaday farriin wada xambaarsan dardaaran iyo digniin. Farriinta culus ee uu sidee Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa ay aadanaha ka saartay hannaankii nololeed ee dilka, tunjileecsiga iyo qaraabakiilka. waxa ay inoo astaysay habraac nololeed oo ay sumaddiisu tahay sinaan, cadaalad iyo kala dambayn. idil ahaan dadku waxa ay noqdeen walaalo isjecel oo wadaaga dareemada farxadda iyo murugada. haddii la eego takoorkii iyo cunsuriyaddii waagaas jirtay ee la liidi jiray dadyowga aan carabta ahaynna, bilaal alxabash iyo salmaan alfarisi waxa ay noqdeen tusaalayaasha toolmoon ee ay tibaaxaysa diinteenna. islaamka dhexdiisa ma jiro hannaan kala sarrayneed, heerar iyo dabaqado bulsheed oo lagu miisaamo kala korraynta qaybaha bulshada. dhammaan dadku waxa ay u siman yihiin xagga alle subxaanahu wa tacaala. samaynta camal suuban iyo alle ka cabsigu waa waajibka saaran qof kasta oo muslim ah. xadiiska laga soo tabiyey rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ee ah carabku kama door roona cajamka, cajamkuna kama door iyo fac roona carabka, wixii aan ka ahayn alle ka cabsiga waa tibaaxda taariikhda gashay ee ka soo baxday afka Nebi Maxamed, nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. maalintaas la joogayna bulsho uu halbeeggeeda nololeed ahaa sidii loo kala awood iyo inamo badan yahay waxa ay ku noqotay afkalaqaad uu iskaga tiraabay wiil yar oo markiisa horeba ka soo hor jeestay diintii awoowayaasha. waxayna ku noqotay dhamac iyo halasta naareed oo laysu saaray sacabbada. wixii Rabbi doonay raagsimaad ma lehee, muddo kooban ayaa ay dadku ku soo hirteen naxariista iyo hannaansamaanta islaamka. muddo laga joogo 14 qarni tirsiga islaamka, ummadihii noolaa waayadaas dhammaantood waxa ay ku sugnaayeen mugdi, iyaga oo meehanaabaya hannaan nololeed oo habboon. jasiiradda carabta waxaa ka aloosnaa colaado sokeeye iyo quursi qabyaaladeed. waxa ay saaxiib la ahayd dagaallo daba dheeraaday sida dagaalkii labada faras ee daaxis iyo qabraa. qaaradda Yurub waxa ay iyana ku jirtay xilliyadii loo yaqaanay casriyadii mugdiga Middle Ages, oo taariikh ahaan u dhexeeyey qarnigii 5aad ilaa qarnigii 15aad. saddexdii qarni ee ugu horreeyey masiixiyada, kiristaanku waxa ay ahaayeen dad laga awood roon yahay oo la toorjargareeyo. qarnigii 4aad masiixiyadu waxa ay isu beddeshay diin la'aan, maadaama uu diinta qaatay boqorkii dabcaabudka ahaa ee Konstantiin, oo isaguna diinta ku ladhay dhaqamadii dabcaabudka. xilliyadaas Yurub waxa ay la daalaadhacaysay nolosha adag ee qarniyadaasi ay madkiyeen. run ahaantiina aadamihii waagaas noolaa waxa uu la tabaalaysnaa helitaanka habraac nololeed oo ku habboon jiritaanka aadamaha. kownka gebi ahaan waxa ka aloosnaa duudsi iyo takoor. waxaa taladiisa iyo arrinkiisuba socon jireen midka keligii taliska ah. waxaa soo hadhi jiray midka xoogga badan. ninku waxa uu nolol xabaali jiray inantiisa, waxaanuu iib u soo bandhigi jiray xaaskiisa. xilli ay waxaas oo dhammi jireen, xilli uusana macaabudku gaadhay heer aad u sarreeya, iyada oo diintii Nebi Ciise lagu soo dejiyey isu beddeshay dabcaabud, laguna sameeyey faragelin taban iyo taxriif, ayaa uu Rabbi korreeye soo diray Nebi Maxamed, nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, isaga oo rumaynaya wixii uu Rabbi ku qeexay kutubtii hore, dadkana u bayaaminaya wixii uga yimi xagga Rabbi subxaanahu wa tacaala. baaqiisuna waxa uu ka run sheegay hadalka Alle ee ah, kitaabkan waxaannu kuugu soo dejinnay in aad dadka kaga saarto mugdiga una hoggaamiso hilinka nuurka, idamka Allena ay ku hirtaan wahdiga iyo dariiqa toosan. qarnigii 7aad ee tirsiga miilaadiga waxaa soo baxay iftiinkii lagu mabsuuday ee islaamka.
hannaankii jiray waxa beddelay caddaalad, walaaltinimo iyo isu soo hilow. cafinta islaamku waxa ay ardaa iyo gogol nabadeed u fidisay shucuubtii laga taagta roonaa oo aan iyagu dhannaba ku tiirsanayn. islaamkana dadku markii ay wanaaggiisa arkeen waxa ay u soo galeen si hormooyin ah ilaa uu Alle ka oofsaday rasuulkiisii Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. nebi maxamed waa garwadeenkii rumeeyayaasha Rabbi, waa tusaalaha nool ee muraayadda u ah tacaaliimta uu xambaarsan yahay. diiwaanka xardhan ee taariikheed weli muu xusin in uu maalinna gacanta u qaaday haweenkiisa iyo ehelkiisa midnaba. Anas ibnu Maalik oo ka mid ahaa wiilashii ugu da'da yaraa saxaabada waxa uu sheegay in aan weli weydiinin su'aasha ah maxaad waxaas u samaysay. Caaisho oo ahayd xaaskii uu jeclaa iyo hooyadii muslimiintuna waxaabay leedahay habdhaqankiisu waxa uu ahaa qur'aanka. waxa aad tahay hanuun, waxa uu Alle qur'aanka ku sheegay, waxa aanu kuu soo dirnay in aad aadamaha u tahay naxariis. rasuulku nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa tusaalaha qof kasta oo muslim ah oo raba in uu falqabadkiisa ku muujiyo bilnaanta iyo boqornaanta islaamka. sidoo kalena facii muraayadda u ahaa islaamku waxa ay noqdeen jilayaasha dhabta ah ee shaashadooda laga dheehday diintii badbaadisay idil ahaanba aadamaha. haddaba maxaa ay yihiin waxyaabaha uu la gaarka yahay islaamku ee laga arkay tilmaanta toolmoon ee muslimiinta? waa maxay sababaha ay basharku ilaa maanta oo islaamka cadowgiisu badan yahay ay haddana islaamka u soo galaan bulshooyin aan ku ababin tacliinta muslimiinta? ma isweydiisay maxaa ka dhigay in aqoon-yahanka reer galbeed ay islaamka qaataan iyada oo laga yaabo in ay cidhifka fog ka taagnaayeen? arrimahaas iyo qodobadaas iyo kuwo kale oo ka sii muhiimsanba waxa aynu ku soo koobi doonnaa muuqaalka kan inoo xigi doona haddii Allaha weyne oggolaado.